ciyaaray u soo daawasho tageen ku dhawaad 60 kun in ka badan oo taageerayaal ah ayuu ka dhex soomay Sharmaake oo ah taageere qarsan waayay jacaylka uu qabo Ibrahim Ilyas oo kamid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee Horseed. Sharmaake ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyay gudaha u soo gala garoomada waaweyn ee Soomaaliya si uu taageeridiisa ugu muujiyo ciyaareenka uu aad ku jecel yahay sidoo kale inuu taageero. wallahi ninkaas aad u jeclahay aadan u taageeraa waana ila dhashanin walaalkayga waaye marka banoonigiisana waa nin aad iyo aad u taageero. Ibrahim Ilyas ayaa markay soo laatay ciyaarta la kulmay Sharmaake oo naftiisa isaga dartiisa lista u geliyay wuxuuna ugu mahadceliyay jacaylka uu qabo wuxuuna kaloo ka balan qaaday inuu la noqon doono saaxiib dhow mar walba uu la socon doono. aad ugu mahadcelinayo waaye jacaylka oo maanta garoonka uu la soo booday shakhsi ahaan aad ugu mahadcelinaa intii uu gurigeena ka jecel oo taageeraysan anaga hor team dhan aad mahadcelinaa Sharmaake walaalkay waxa ku dheelay mahadsanid insha Allah game soo socdana maaliyada kulanka ku siin doona insha Allah. Sharmaake ayaa noqday shakhsigii ugu horeeyay ku dhiirada iyadoo ay socoto ciyaar inuu gudaha u soo gala garoonka waana falyo dhacdo kaliya ay ku koobneed dibadda maantana Soomaaliya gaar ahaan garoonka Stadium Muqdisho ayay ka dhacday. Sharmaake ayaana sameeyay arrinkaas oo ay hadal hayaan guud ahaan dadkii ku sugnaa garoonka tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho.